بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلو ديار جروبا كنا سو دوادا وروحينا سو غاray inuu dika soo jeedin doono xarunta dhexe telefishinka qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Qodobada warka ugu doorka roona waxa kamid ah xubno kamid ah golaha wasiirada oo kormeeray mashruuca biyo ballaarinta magaalada Boorama. wasiirka ka socda xukuumadda Soomaaliland oo soo afjaray khilaaf dhul oo ka taagnaa degmada Wajaale. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo shahaadooyin guddoonsiiyay shaqaale tababar dhamaystay. abbaagduulaha koowaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland oo socdaal shaqo u tagay xarunta gobolka Sanaag ee magaalada Ceerigaabo. intaasi waa warka madaxdiisa imikiyaha tanna daawadayaal u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa kulan la qaatay guddiga nabadgelyada ee gobolka Awdal. wafdi ballaaran oo hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kormeer hawleed ku yimid deegaanka degmada Boorama ee gobolka Awdal. waxaana ku wehelinayay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland waxaana uu ujeedada socdaalkiisa ku sheegay inay doonayaan inay soo gabagabeeyaan arrimaha mashruuca biyaha ee galbeedka Boorama oo dhawaan dhibaato ka dhacday. waxaana wasiirka arrimaha gudaha oo ay weheliyaan wasiir ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasiiradii hore ee qorsheynta boostada iyo isgaarsiinta maayirka degmada Boorama barasaabka ay kulan la qaateen madaxda ciidamada kala duwan ee gobolka ka howlgala. waxaana kulankaasi lagaga hadlayay sidii amniga loo sugi lahaa deegaanka degmada Boorama. waxaana kulankaasi ugu horeyntii ka hadlay barasaabka gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali waxaana uu sheegay hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye labada wasiir dhammaantii nooga yimi halkan oo maraya iyo xaaladda biyaha oo xayirayd arrimo nabadgelyo ninka la dilay darteed sida looga wada xaatoon lahaa amba maanta loo furihaa ama hawlahooda loo gelihaa bay u socdaan. waxaan leenahay wasiiro welcome. wasiirkii ganacsiga iyo dalxiiska iyo warshaduna isagoo horuu noola joogay. wasiirkii hore qorsheynta iyo wasiirkii hore ee boosaha. sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka warshadaha ganacsiga waxaana uu tilmaamay halka waxaan ku sugnaa ilaa 4 casho howlaha nabadgelyada ilaahayna la qabteen. waxaan leeyahay wax badan baad ka qabateen idinkuna nala sii tiirinaysay aad iyo aad bay xaaladdu u fiican tahay. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inuu nala wado. iminkana waxaan leenahay ku soo dhawaada. sidoo kale waxaa isaguna halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye waxaana uu ka waramay waxaan u soconaa waxa weeye dalku waa dalkii oo kormeer waanu nahay. gaar ahaan waxaan u soconaa dhacdadii halkan ka dhacday ay hawshii socotay ee biyuhu u yar hakadeen dilkii halkan ka dhacay. taasoo nagu hogaaminaya wasiirka arrimaha guduhu hawshii nabadgelyada halka ay marayso seen wax uga qabanay sidii biyihii iyo hawshii ka socotay ee muxuu dadka wax loogu qabanayay ay uga sii socon lahayd. waxaan ku soo dhaweynaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa uu ka waramay ujeedada socdaalkooda oo uu ku tilmaamay inay tahay sidii dhibaatadii dhinaca ceelasha biyaha ee galbeedka Boorama ka dhacday loo soo afjari lahaa isla markaasina ay kulamo kala duwan ula yeelan lahaayeen bulshada noocyadeeda kala duwan. aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa. waxaanu soconnaa gobolka Awdal magaalo madaxdii Boorame hawlihii arrimaha biyaha iyo baanu doonaynaa inaan hawlaheedii baanu soconnaa. insha Allah bismillaahi alkariim waxaynu ku ballamaynaa uun horumarku had iyo jeer nabaddu ku xidhay
gobolkanina de wuxuu ku caan baxay ooda uu lahaa nabadda marka waxaynu doonaynaa nabadda in laga shaqeeyo aad iyo waa caafi TV-ga qaranka Soomaaliland boorama xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliland ayaa kormeeray mashruuca biyo ballaarinta magaalada boorama ee xarunta gobolka Awdal wafdigan ay kamid ahaayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland maamulka gobolka Awdal ka degmada boorama mas'uuliyiinta shirkadda adeegga biyaha boorama ee Shaaba wasiirro hore ayaa soo kormeeray mashruuca biyo ballaarinta galbeedka magaalada boorama wafdigan ay ujeedada socdaalkoodu ahaa sidii ay hakad uga saari lahaayeen mashruuca biyo ballaarinta galbeedka magaalada boorama oo istaagay kadib markii dhawaan lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska markii uu wafdigani gaaray deegaanka Afraag ee uu ka socday mashruucani ayaa waxa halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadka deegaankaasi inta kadib munaasabad kooban oo madashaasi ka dhacday ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay isla markaana ka warbixiyay ujeedada wafdigani maamulka gobolka Awdal iyo kani degmada boorama maanta halkan waxaad ka dareemaysaan lixajeclada ay dawladdu idinka qabto halkan waxaad ka dareemaysaa gurmadka dawladdu aanay u kala hadhin ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda dakhliga ama arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dawladdu ku dhaaratay oo maanta ay wasiiradaasi nagala joogaan deegaankaasi inaanu biyo la'aan oo gobol xaad u ahaa waftigan iyo sidii biyaha soo noqon lahaayeen iyo sidii nabadii yar xoogay baalkeysatay dib loogu soo celin lahaa marka waxaan idin sheegayaa in waxa la faro in maanta ku balano aynu fulino war diyaar ma loo yahay sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta qaranka Cawaale Ibrahim Shirwac waxaana yiraahdeen ummadda nolol baynu doonaynaa iyo nabad hadii nabad la waayo la cibaadaysan maayo oo la dhisan maayo oo la dhaqan maayo waa ogsoontii culimada masaajidada jooga inay ka hadlaan oo sheegaan weey ma ahayna qaarkood aflagaada ku sii daraan iyo arrin xumo waxa loo baahan yahay maanta aanu idinka baahanaano u soconaa anagu biyihii waa idin bilaabayna hay-adihii iyo ciddii hawshaa wadee maalgelinaysa way nala socdaan hadda ogaado ciidankiina waa nala socdaa laakiin ciidanku intuu idinku noqonaya marka ummaddan meesha la eego idinkaa la rabaa inaad kuwii indhihii iyo dhagahaba u noqon lahayd iyo gacmahaba inaad noqotaan laydinka baahan yahay ee inamada doonaya inay nolosha dadkan ka baabiyaan kuwii soo qaban lahaa waa idinka aabbihii waxuma aha hooyadii waxuma aha walaalkii waxuma aha ka waxaa ku jira wax alle wuxuu yahay ma jirto waa cadowgu dhexdeena inaynu ku ilaashano aynu ku muxuu ahaa dhowro maaha wuxuunsay aad ogaataan inaan nabad la'aan aanay nololi jirin taa ogaada nabadgelyadu waxa weyn asaaska nolosha haddii nabadgelyo la waayo waad ogtihiin imika bisha 12keedii baa ahayd baan u malaynay ilaa maanta mashruuci uu taagnaa aanan idiin sheegay uu noqon gaadhay waa lagu guntaday uu noqon gaadhay sida meelo badan oo kale baa uga noqday buu noqon gaadhay marka waxaan jecelahay barwaaqan ku jirnaa dadku ha gartaan aan garawsanno waxna aan wada qabsanno wixii horumarkeena wax u dhimayana de aan dhinac uga soo wada jeesano wasiirkana aad baan ugu mahadnaqayaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadka deegaanka iyagoona soo dhaweeyay wafdigani sidoo kalena ballan qaaday inay ka shaqayn doonaan mashruuca biyo ballaarinta galbeedka magaalada boorama haddii lagu tilmaamay bulshada halkan degan ee waliba jufada hoosaan u sinay sidii wasiirkaygu berigi hore sheegay haddii lagu tilmaamay wax cid maanta aan joogin ma cid ba qarin lama qarinayo horumarka ka biyaha horumarka Soomaaliland dhammaanteed diyaar baan nahay waxaan leeyahay wasiir wiyo inta hogaaminayba waxaan diyaar u nahay madaxda sharafta leh beeshu nabadgelyadii horumarka diyaar baan u nahay waxa dhacayna waan ka xunahay ninkii dhintana la naxariisto waxaanan af lahayn baan nagu sameeyay ka codsanaya tolkayo ilaan nabadgelyada ilaalisaan mashruuca muhiimkaana sidiisa uu fulo oo la carqaladayn أنا أتكفى ستان وحكالو لذلك عطانيا إن إسكاش بوحة لا سمايا إنجينير كا هوش شغينيا
waxa halkan ka socota shaqo horumar baa ka socda wixii aan xaq u leenahayna waan doonaynaa annaga oo nabadgelyo ku doonaynaa annaga oo walaalnimo ku doonaynaa ayaan doonaynaa waxaan leenahay tixgelinteedana waan leenahay hala nagu tixgasho inta kadib waxa isaguna halkaasi ka hadlay isla markaana hadalka soo gabagabeeyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed waxana uu sheegay ragga biyahan boorame ee maanta halkan la jooga ragga diidani waa ragga saddexda jeer ba qasabada ku maydha ayaguna waxa cabtaan baa laadihin haddaydan biyihiina u dagaalamin oo noloshiina u dagaalamin ninaan waxay Soomaalidu taadaan ninaan kuu furi doonin iyaanu kuu rarin ragaan dantiina ogeyna hadday biyihiina iyo noloshiina diidayaan miyaa helaysaan tabtaasaa ku noolaanaysaanoo silacaasaa ku noolaanaysaanoo noocaasa ahaanaysaan nabadgelyadaa laynoogu yimaada nabadgelyadaa horumarinta leh nabadgelyadaa nidaamka inoo ilaalinaysa annagu maanta waxaanu ku ballannay guddiga nabadgelyada ee gobolka dhammaan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland ee gobolka jooga ciidanka militariga ciidanka booliiska asluubta immigrationka ciidanka sirdoonka waxay amar ku qabaan hawsha cid allaale iyo ciddii carqaladaysa inay tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadaan in allaaliye intii dambiilayaasha ahaydna in ay raadiyaan waxaan leenahay go'aamadii la qaatay ee xaafaddu ay qaadatay ee la istifeeyey ee nin walba waajibkiisa farta laga saaray soo ma jirin kuwaasun baanu annagu fulinaynaa kii fulin waayana sharcigaanu horkeenaynaa waa Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland wasiiro ka socda xukuumadda Soomaaliland ayaa soo afjaray khilaaf oo dhul oo ka taagnaa degmada Wajaale oo kamid ah qaniimadaha qarankan ay leeyahay ayaa maalintii shalay waxa soo gaadhay wasiirada wasaaradaha isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Cabdulla Sheekh Cabdullaahi Suufi iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cabdirashiid Xaaji Ducaale Qambi oo u yimiday indhaynta khilaaf ka dhashay dhul madaxweyne hore qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo uu siiyay xabaalaha magaalada ganacsiyeedka degmada Wajaale dhulkaasi hore loogu aqoonsanaa xabaalaha magaalada ayaa dhawaan maamulka degmada Wajaale ay qayb kamid ah dhulkaasi siiyeen wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo halkaasi ka dhagax dhigtay xarunta rarka dejinta iyo isxambaarka gaadiidka ayaa wasiirada wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada iyo hawlaha guud dhulka iyo guryeynta oo maalinkii shalay ku sugnaa isla gudaha Wajaale ayaa kulano kala duwan la qaatay barasaabka gobolka Maxamed Ismaan Xaaji Axmed isuduwaha wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta maamulka degmada Wajaale iyo sidoo kale ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Wajaale kulanadaasi oo maalinkii shalay ahaa ku soo dhamaaday safgarad iyo wasiirada wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeynta iyo isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu ay maanta dib ugu soo laabteen magaalada ganacsiyeedka degmada Wajaale iyagoo gabi ahaanba soo afjaray khilaafkaasi isla markaasina ka soo saaray go'aano Cabdulla Sheekh Cabdullaahi Suufi wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada oo ku hadlayay afka golaha wasiirada ayaa sheegay in madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo uu bixiyay xabaaluhu inay ahaanayaan xabaalahooda hore wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland la siinayo dhul kale oo ku yaala isla magaalada Wajaale waxaana wasiirka uu yiri bisha labaad ay tahay 16 maalin xada waxa Wajaale yimid anigii wasiirka hawlaha guud wasiir Cabdirashiid Qambi oo nimid arrimo ka taagnaa Wajaale la xiriir dhul danguud oo leedahay dawladdu waxay maalmo dhaweeyday waxa maamulkii ay isku fahmi waayeen odayaasha magaaladu marka runaantii wasiirku isagoo wasiirka u xil saaran arrimaha danta guud dhulka la xiriira wax badan ka qabtay waxaan maanta noo suurta gashay inaan soo gabagabayno si fiican inoogu soo dhamaato waxa weeyaan wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka dhulka ay dawladdu siin doonto dhulkii horena lagu daayay sidii loogu talagalay oo ahayd in xabaalaha magaalada ay ahaato taas waan isla soo qaadan dawlad ahaan waan inoo dhamaystirantay wasaaraddaana meel kale oo Wajaale ka tirsan baayadana la siinayaa sidoo kalena odayaasha xidhnayna xalay soo baxeen runtiina waan naga nimka shirka soo baxnay maamulkii degmada iyo odayaasha laftigooda isla garanay wixii khaldan la saxo ay wada shaqeeyaan magaalo ganacsi badan ka socdo u baahan in hawlo badan laga wada shaqeeyo marka taana isla garanay
si fiican noogu soo dhawaatay waxaan u sheegnaa shacabweynaha reer Wajaale iyo reer Gibir dhammaan Soomaaliland oo dhan in wax dhibaato aan jirin inta horan islaam fahmaan ahayd dawladuna iyada dhulka mar walba ka mas'uula wana xil saaran sidoo kalena qof shacab intuu soo istaagay miidiyaha midahan jabaad u jeediyo oo keena hadal khaldayadana inay tahay wax khaldan oo isla garanayaash ka garacdeen kulli dib noo soo noqonayso intaasaan wasiirka maanta aan maaragtay kusoo gabeynaa sidoo kale wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Cabdiweli Sheekh Cabdilaahi Suufi oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay in dhulkii hore ee Masar Balaanka u maray magaalada Wajaale 2018 qaybo kamid ah dib loogu celinayo maadaama ayuu yidhi qaar kamid ah dadku ku soo durkeen goobahaasi 2018 wasaaradda hawlaha guud waxay u sameysay Wajaale qorshe guud oo lagu talagalay in magaalada Master Balaana waqti hawl badan ay ku dhacday marka iyadoo taa laga duulayo meelo kamid ah suuqa magaalada ay wax soo galeen oo ay dadku dib ugu soo noqdeen wasaaradda hawlaha guud waxay sameyn doontaa in dadka halkii ku celiso muddo 2 toddobaad gudahooda qof kasta ganacsado marka dib ugu soo noqday waxaan halkan uga sheegaynaa in ay wasaaraddu iman doonto cid kasta oo dib ugu soo noqotay jidadkii danta guudna maaragtay iyadoo lala kaashanayo maamulka dawladda hoose magaalada in maaragtay dib loo celin doono master balaankiina dib loogu noqonayo waxaana uu yidhi wayala xaaji telefishinka qaranka magaalada Wajaale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa shahaadooyin guddoonsiyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo dhameystay tababar muddo uga socday xarunta wasaaradda wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane Cabdinaasir Cumar Jaamac ayaa tababar u soo gabagabeeyay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta oo laga soo kala xulay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay kuwaasi oo qaadanaya tababar ku saabsan qaabka xogaha loo ururiyo iyagoo sameyn doono xog ururin ku saabsan sida loo dhageysto idaacadda radio Hargeysa iyo sida loogu xidhan yahay daawashada telefishinka qaranka Soomaaliland waxaana munaasabada tababarkaasi lagu soo xidhay ka soo qayb galay qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta ugu horeyn waxa halkaasi hadalka iska daba qaatay macallinkii bixiriyay casharadan ku saabsan xog ururinta Muuse Kaamil iyo sidoo kale Raxma Cabdilaahi Meegaag oo ah madaxa cilmi baadhista ee waaxda qorsheynta ee wasaaradda warfaafinta agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdiqaadir Dayib Askar agaasimaha waaxda idaacadaha ee wasaaradda warfaafinta Xasan Maxamed Yuusuf oo dhamaantood ka warramay tababarkan iyo muhiimadda waxa xambaarsanaa shaqaalaha ka faa'iideystay hafiyo ka hawan ku faraxsan inaanu qayb kala ahaano aqoon isweydaarsigan halkan aynu ku kala qaadanay sida xogta loo soo ururiyo waxaanu inta badan diyaar u nahay waliba wixii tababaraya kale la nooga baahdo inaanu wasaaradda la garab istaagno marka dhamaantii waad mahadsantiin labadii cisho sida aynu kala faa'iideysanay anigana waxba ay kordhay idinkana waxba idin kordhay runtii tababarkeenan ayaa ujeedadiisu waxay daaranayd oo yahayd inaynu maadaama xafiiska cilmi baadhista ee statistikadu uu sameynayo cilmi baadhis lagu ogaanayo saameynta dhageystayaasha radio Hargeysa iyo daawadayaasha telefishinka qaranka ay ku leeyihiin bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay tababarkani ibafuru ahaa aqoon la doonayo inay ka faa'iideystaan tiimka ama kooxda ka qayb qaadanaysa xog ururinta laga soo sameyn doono 6 gobol ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonaynaa inaan ibafurno dhaqan ah in wax kasta oo la sameeynaya u daraasad ama cilmi baadhis dabada ku hayo oo evidence yeesho barnaamijyada radio Hargeysa waxaan ku faanaa inay tahay hay'adda ugu muddada dheer ee warbaahineed ee dhulka Soomaalida iyo dadka Soomaalida ka hadlaaba ay leedahay barnaamijyadeedu waxay u fadhiyaan si aad u qurux badan wax kasta oo laga bedelayaa waana ka yimaadeen maxay go'aan cilmi ah oo ku saleysan oo dadka dhageystayaasha ah ama barnaamijyada bixisa ama wararka bixisa ee madadaalada u sameeysa ay xogtoodii ka soo heshay si go'aan ay uga qaadato inagoo taa markaa ka duulayna sidoo kale TV-ga qaranka waxaynu doonaynaa in aynu dhaqankaasi uu noqdo dhaqan barbilow u noqda hay'adda wasaaradda warfaafinta oo haddii idaacad cusub la keenayo haddii TV-ga wax laga bedelayo haddii wax lagu soo darayo ay noqdaan wax baaritaan rasmi ah lagu sameeyay si aan go'aankaasi marnaba aan looga murugoon waxaan si gaar ah horta marka koowaad ugu mahadnaqayaa gabadha dadaalka badan ee waaxdeeda ka tirsan aan sidaadeena hablaha wasaaraddu saasoo kala qaybaha badan ha noqdaan in ay hal abuurnimada daraasadda lafteeda iyadoo ay keentay oo waaxda ku soo kordhisay waxa la idin doonayaa intaydaan daraasadda rasmiyan aydan u gelin in aqoonta aad cilmi baadhida u leedihiin kor loo qaado
anigu aad baan ugu faraxsanahay in research noocana ama cilmi baadhis noocana in la sameeyo runtii waxaan aaminsanahay sababtaan ugu faraxsanahay wax kale maaha waan ku kalsoonahay waxa ka soo baxaya baan ku kalsoonahay kalsooni 100% ayaan ku qabaa researchka waxa ka soo baxaya inuu yahay mid aan aad iyo aad aan muxuu ahaa ugu faraxsanahay runtii aniga iyo mas'uuliyiinta kale iga sarreeyay wasaaradda iyo guud ahaan wasaaradda gaar ahaan shaqaalaha radio Hargeysa xoog ay aad ugu farxaan inay ka soo bixi doonto iyada aad baan ugu kalsoonahay 100% sababtoo ah waxaan ogahay dadka ka hawlgala kartidooda iyo dadaalkooda waxaan ogahay barnaamijyada aanu sii deynaa ee midna wasiir aynu u faafinay bulshada nooca ay yihiin wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Cabdinaasir Cumar Jaamac oo gabagabadii halkaasi ka hadlay ayaa shaqaalaha kula dardaarmay in tababarkan ku saabsan qaabka xogaha loo ururiyo ay qaateen uga faa'iideeyaan qaranka waajibka inaga saaran inaynu kobcino raadiyo Hargeysa oo waajib waa ka ballaaran hanti ahaan baynu raadiyo Hargeysa reer Soomaaliland ahaan u leenahay laakiin marka loo eego dadka af Soomaaliga ku hadlay ku kala noolshanta waddan ee af Soomaaliga lagaga hadlo mas'uuliyadaadu weyn baynu haynaa dadka oo raadiyo Hargeysa oo xogta iyo aqoonta iyo kaydka halka yaala ama taariikhda ay xambaarsan tahay mas'uuliyadaadu weyn ba halka ina fuulaysa marka inaynu research noocan oo kala qabanno iyo inaynu tayada iyo barnaamijyada iyo quality-ga ay leedahay raadiyo Hargeysa kordhinaa waa waajib guud oo ay nagu leeyihiin aan anigu isla shakhsiyan dadka Soomaaliga ku hadlo oo dhan ee shanta waddan ku kala nool Ethiopia Soomaaliya Kenya Djibouti iyo Somaliland waan isleeyahay waajibkaasi wuxuu inaga dhacayaa markaynu shaqada kor u qaadno waxaan kula dardaarmayaa waxa weeyaan tababarka la diisiyay inaanu qusaynin researchka ama aqoon raadinta laakiin wasaaradahan baahi weyn baynu u qabnaa qarankuna inoo qabaa inaynu maamulkeena iyo adeega aynu qaranka u hayno inaynu tayeen waan ku hambalyeeynaya shaqada dambana way ku garab joogeynaa insha Allah maadulaha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa socdaal shaqo ku tagay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland sareeyo guuta Cabdirasaaq Siciid Bulaale oo uu heliyo taliyaha cusub ee qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka sareeyo guuta Muuse Jaamac Dalaf ayaa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Cerigabo waxaana mas'uuliyiintaasi duleedka magaalada Cerigabo kaga hortagay taliyihii hore ee qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka gaashaanle sare Faysal Cabdi Bootaan oo hadda loo bedelay qaybta 12aad ee ciidanka qaranka madax dhaqameed iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana ugu horreynba munaasabadii soo dhaweynta halkaas ka hadlay taliyihii hore ee qaybta saddexaad gaashaanle sare Faysal Cabdi Bootaan oo mas'uuliyiinta halkaasi ku soo dhaweeyay waxaan dhaweynaynaa abaanduulaha ciidanka qaranka iyo taliyaha qaybta cusub sareeyo guuta abaanduulaha ciidanka qaranka Cabdirasaaq Siciid Bulaale taliya ku soo dhaweey adigay waftigaagu gobolka Sanaag degmada Cerigabo halkan waxa kugu soo dhaweynaya barasaab ku-xigeenkii gobolka Sanaag salaadiintii cuqaashi saraakiishii ciidamada aqoon-yahankii dhammaan waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan u malaynayaa markii kuugu horeysay maaha ee aad timaadid Cerigabo dhowr goor hore timi soo dhawow taliye gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa waxa iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Sanaag oo ku nuuxnuuxsaday guulihii uu ku tallaabsaday taliyihii hore ee qaybta saddexaad Faysal Cabdi Bootaan iyo doorkii uu ka qaatay nabadeynta gobolka Sanaag oo isagu uu ku guuleystay bay yiraahdeen inuu soo afjaro colaadii dabada dheeraatay ee degmada Celafweyn waxaana madax dhaqameedkani ay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ay ka codsadeen in taliyahaasi darajo iyo biladaba lagu abaalmariyo waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland ninkaas la'aantii caare meesha kamaanu soo saari kareen nabad iyo wanaag iyo sharaf ayuu ku soo baxay iyo sasabasho waxaan leenahay ninkaas hala siiyo challenge hana maxay tahay caafimaadna loo diro bilad geesina hala siiyo uma cusba madaxda tan gobolka waa tii weligeedba ka shaqaynaysay kuwaanu soo dhaweynayna waxaanu leenahay guulaysta kuwaanu saboteynana waxaanu leenahay waliba Faysal Cabdi Bootaan ka mid yahay oo waliba dhamacdii gobolkan ka dhacday ka qaatay guul weyn oo de waxay la tahay maanta waa nabdoontahay markay nala buraanleysay taladu sida ceel birquda nala buraanleysay ee bowda laga saaray de maanta meeshii boqonta weeyaane
gobonnimo bannaan lagama helo bariska taaltaal ninkaas waa ku guulaystay gobolka idinna dee idinkana waxaanu idin leenahay idinkuma qarxi doonto ninkaana u sii duceeya hawl weyn buu ka qabtay gobolka soo dhaweynta abaantulaha guud iyo taliyaha mataqaanaa cusub ee la soo bedelay ee qaybta odaygii magaalada horena u ahaa iminkana aanu aad u soo dhaweynayno waxaan halka ku sii sagooteynaa sida hore looga dhawaajiyey taliyihii qaybta saddexaad Faysal Cabdi Bootaan waxaanu leenahay abaandule waxaanu leenahay sida hore looga dhawaajiyey taliyaha Faysal Cabdi Bootaan runtii sida hore looga dhawaajiyey waa kala socotaan asbadii ugu weyneed ee gobolkan ka dhacday run ahaantii iyadoo uu ku shaqeynayo taladii iyo hogaankii madaxweynaha iyo jalanka ciidanka iyo idinku madaxdiyaaba uu ku shaqeynayay runtii aad buu hawshaas sida looga dhawaajay uga qayb qaatay isagaa soo dhaweeyey waanu la shaqeynaynay dadkii la shaqeynay weeye la'aantiina sida looga dhawaajay ee xildhibaanku sheegay runtii doorkii ugu weynaa isagaa soo afjaray arrintaa waanu soo dhaweynaynaa waanu sii sagooteynaa meel khayr laanu ducaynaynaa abaanduulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan sarreeye guuto cabdirasaaq siciid bulaale ayaynu soo dhaweynaynaa iyo taliyaha loo soo bedelay qaybta saddexaad ee janaraal muuse jaamac waxaa iyaguna ka mahad celiyey sida diiran ee gobolka sanaag loogu soo dhaweeyey abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan sarreeye guuto cabdirasaaq siciid bulaale iyo taliyaha qaybta saddexaad ee ciidanka qaranka sarreeye guuto muuse jaamac dalaf mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaaran ee noo samayseen gobolka sanaag waa lagu yaqaanay aad baan idinka mahad celinaynaa walow militarigu aanaan saxaafadda isku fiicnayn horta waxaanu u soconnaa kormeerkii ciidamada ee caadiga ahaa iyo qodobka labaad oo ah jenaraal muuse oo wafdiga igula hogaanay la socda oo ah taliyaha qaybta saddexaad ee loo soo magacaabay gobolka muuse ma aha gobolka kuma cusba wuxuu ahaa raggii dhidibada u taagay aasaaskii ciidamada qaranka ee gobolka sanaag oo baaxaddiisu ay leeg tahay 3 gobol oo Soomaaliland ilaa dhahar ilaa badhan ilaa iyo garadag ilaa ceelaf weyn intaa dhidibada u taagay ciidamada waxaan kaloo xusayaa taliyaha qaybta iminka aanu xilka ka wareejinayna ee loo magacaabay taliyaha qaybta odayaashii ugu horreeyay hadalka waxay ku dareen dawladdu ninka shaqeeyay bedesha Faysal waa la bedelay lama eriyin halkana waxaan idinkaga dhawaaqayaa Faysal madaxweynuhu isagoo Faysal ku shaqeynayay runtii xaaladii adkayd ee aad ka wada dhawaajiseen ee gobolka soo martay ee dagaalkii ehliga ahaa iyo kii dabadda labadaba cadowgaba runtii dhibada u taagay oo adkaystay hawl adagna ka qabtay lana ilaawi karin Faysal waxqabadka oo halka ka qabtay taasoo ahaa fishankiisu aanu ahayn laakiin oo ahaa fishanka iyagii uu ku wada ku shaqeynay maamul ahaan hadday madaxweyne tahay iyo hadday taliye ciidan tahay baanu ku hogaaminaynay aad baan uga soo baxay waana la shukri cala alwaajib halkan aad ka wada dhawaajiseenna madaxweynuhu xafladayadii ciidamada qaranka laba sargaal buu biladii xusay laakiin Faysal wuu ku jiraa bilad geesida isagiyo mahad cambaasho ninka la yiraahdo way ku jiraan taliyaha gobolka Sool iyo isaguba way ku jiraan inta u dhaafi maayo ragga kale ku jira rag kale badan baa ku jira waa horta marka hore waa idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta qiimaha badan oo idaan u kala harin reer Sanaag ahaan waadna soo dhaweyseen aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waxaan rajaynayaa xilkaas hadeer lay soo magacaabay oo mar labaad lay soo magacaabay mar saddexaadba inaad garbaha ila qaban doontaan sidaas darteed aanu guulaysan doono haddaan nahay reer Sanaag nabadgelyadana ka shaqayn doono gees ilaa gees waxaan rajaynayaa kuwiina ka caroodena inay soo noqon doonaan la isugu iman doono nabadgelyo ilaa garadag ilaa laasqoray ay noqon doonto waa maxamuud maxamed xasan saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland wararka gobolka Sanaag agaasimaha barnaamijka la yiraahdo shaqo qaran ayaa shaaciyay waqtiga loo fadhiisan doono imtixaanka shaqo qaran
agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan mu'aadika oo la hadlayay warbaahinta kala duwan ee dalka ayaa si rasmi u shaaciyay in maalinta isniinta oo ku beegan 24 bisha February si rasmi loogu fadhiisan doono imtixaanaadii wajigii labaad ee barnaamijka shaqo qaran kaasoo ay ka qayb gali doonaan ardaydii ka baxday jaamacadaha dalka ee soo xareysay isla markaasina dhammaystiray shuruudii looga baahnaa barnaamijka shaqo qaran agaasimuhu waxa ugu baaqay guud ahaanba ardaydii buuxisay foomamka iyo shuruudihii lagu xidhay barnaamijka shaqo qaran in ay u diyaar garoobaan imtixaanadaasi oo u dhici doona hanaan cadaaladeed waxaan joognaa xarunta xafiiska imtixaanaadka qaranka oo maanta si rasmi ah uga dhawaaqi doono maalinta la qaadayo imtixaankii loogu tartamayay dafcadda labaad ee shaqo qaran waxaan si rasmi ah ugu sheegayaa tartamayaashii u soo qortay codsiyada inay ka qayb galaan dafcadda labaad ee barnaamijka shaqo qaran in imtixaankii la qaadi doono 24 bisha labaad 2020 oo ah maalin isniina imtixaankaas waxa uu ka dhici doonaa dhammaan dalka oo dhan gaar ahaan imtixaanka waxaa lagu geli doonaa xarumaha gobolada awdal boorama gabiiley maroodijeex hargeysa saaxil berbera burco oo togdheer ah sool oo laascaanooda sanaag oo ceerigaabo ah gobolka badhan waxay iyaguna imtixaan ku geli doonaan magaalada ceerigaabo imtixaankaas waxaa qaadaya xafiiska imtixaanaadka qaranka oo looga bartay cadaalad iyo midmadow la-aan marka muddada wiiga ah ee ka hadhay maalinta imtixaanka la qaadayo waxaan ku boorinayaa inay usoo diyaargaroobaan imtixaanka waxaa kaloo aan ku adkeynayaa in goobta imtixaanka markay imanayaan dhalinyarada tartamaysa ay soo qaataan aqoonsigooda muwaadinka ama national ID-ga ay soo qaataan kii national ID aan haysanina wax kaloo lagu aqoonsado oo sawirkiisu ku yaallo soo qaato si loo aqoonsado intaasaan ku adkeynayaa ha usoo diyaargaroobaan gudoomiye ku-xigeenka xafiiska imtixaanaadka qaranka xasan qaliil oo halkaasi ka hadlay ayaa isagu iftiimiyey in xafiis imtixaanaadahan ay diyaarin doonaan guud ahaanba imtixaanaadka iyo goobaha loogu talagalay inta ka horeysa muddada uu cayimay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran waxa weeyaan maraaxishii dambe ayuu ku jiraa xawaaye diyaargarowgiisii iyo isutubaridkiisii haddii alla yidhaa wiikan waa naga dhammaanaya isagoo xakamo la yuurura ayaa wiigaa dambe markuu bilaabmo la sii daynaya haddii alla kuulayo gaadiidkii loogu talagalay waxaan leeyahay ardaydu ama tartamayaashu muddo ayay ka maqnaayeen aqoomo kala filiqsan oo kala duwan ay wadeen intaa yara ka faa'iidaystaan oo ha akhriyaan oo ha eegaan muqararkii dugsiga sare ha eegaan ha ka bogtaan oo ha eegaan waxaan kusoo dhaweynayaa insha allahu tacaala imtixaan bilaa turxaana oon madmadow lahayn laakiin waxaa la rabaa ardaygu inuu ardaygii yahay baa la rabaa waxaanu diyaarsanay wixii aanu ciddii wax madmadow sideeta aanu ku qaban lahayn waa noo diyaar weeyaan waxa weeyaan kaararna way gobolada way u samaysan yihiin kaarar maca sawirkoodii uu ku dhidsan yahay maroodijeex iyaga kaarkooda waxaanu ku kabi doonaa dhalashada ayaanu ku kabi doonaa marka arday kasta waa inuu saa maxamed sheegay uu soo qaataa ID kaarkiisii nationalka ahaa ka iyagana waanu iyaguna way isku marag furi doonaan labada kaar waxaan leeyahay sidaa iyo mustaqbal wanaagsan iyo
iyo nasiib wanaagsan. kulan lagaga hadlaya ka qaybgalka dhinaca siyaasadda Somaliland ayaa waxa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Cabdulqaadir Cabdulaahi Nuur ayaa faafaynta warkaasi inoo haya. doodan oo ku saabsan muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka ee bulshada Gaboye ayaa ka qabsantay magaalada Hargeysa waxaana doodaasi ka qaybgalaya isla markaasina ka qayb qaadanaya aqoonyahanka reer Somaliland waxgarad iyo mas'uuliyiin ka kala socday asxaabta siyaasadda agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland iyo garyaqaan Umar oo kamid ah komishiga xuquuqlisaanka qaranka Somaliland ugu horeyn waxa halkaasi iba furay isla markaasina ka hadlay gudoomiyaha ururka Adam Academy Khadar Jirde Saciid oo ka warramay ujeedada ay u soo agaasimeen kulankan iyo waxyaabaha loo baahan yahay inay ka soo baxaan oo muxuu ahaa bulshadana markaan wacyigelinteed sameeyay dhanka siyaasadda waxa yaala badan oo ciida ka badan man la kulanay oo kamid yihiin dadkan inaanay helinba muxuu ahaa wacyigelin ku saabsan inay xaqooga raadsan karaan walillahi alhamdu si fiican bay noogu qabsoontay hadafka iyo ujeedada aadama kali u taagayna waxa kamid ah inuu loo boongareeyo oo wacyigelin siiyo badan dadka bulshada hadday tahay dhanka xirfadda skilliska ay lahayn bulshadani on kor u qaadnay hadday tahay dhanka shaqo abuurka oo aan ka shaqeynay oo dhalinyarada aad u badan aan shaqo abuur u sameynay ujeedada iyo nuxurka aan u soo koobaya hadalkay waqtigaas ka gaabanay waxa weeyaan goobtan aan caawa joogno waxaanu kaga hadlaynaa muhiimadda ay leedahay inay dadkani ka qayb galaan talada siyaasadda iyo talada dalka jamhuuriyadda Soomaaliya taasna waxaan uga gol leenahay annagoo mahad celinayna hay'adda Action Aid iyo UK Aid oo naga caawinaya barnaamijyadan oo aanu tegi doono goboladana aan ku soo sameyn doono inay tahay in bulshadeena hesho cid matasha ka dhibtay fikirkooda ku aadan ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka ee bulshada Gaboye waxaana hadaladoodii kamid ahaa qodobka 8aad ee dastuurka waxa la akhriyo qodobka 9aad qodobka 12aad iyo qodobka 16aad inta marka la isla akhriyo waxa ay ku siinaysaa in dadkaasi ay xaq u leeyihiin in la sameeyo wax la yiraahdo positive discrimination oo ah in kor loo soo qaado dastuurkeena wuxuu sheegay qodobka 9aad inay ku dhisan tahay dowladda Somaliland dhibabadeeda kamid tahay dimuqraadiyaddu 7 principle bay leedahay principle kamid ah wuxuu leeyahay full participation marka haddiina inagu aynaan wixii si fiican wada akhrisan karin doonaya halka ay sirtu ka quruntay waxa weeyaan siyaasaddu waxa weeyaan inay bulshada ay noqoto mid u siman inanka Gaboye ka tirsanamaynantu waa inay qofku isagu horta is-aaminaa la tartami karaa qofka kale ugu dambeyntiina waxa halkaasi ka hadlay Cabdirashiid Cabdiraxmaan agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Somaliland iyo garyaqaan Umar oo kamid ah xubnaha komishinka xuquuqlisaanka qaranka Somaliland oo soo dhaweeyay in ay doodaha caynkan oo kala laga hadlayo ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka bulshada Gaboye halkaasi laga sii wado si bulshadaasi ugu dhiirato in ay wax la qabsadaan bulshada kale ee reer Somaliland dadkana waan u dhaxeeyaa iyo maraadku shaqo ka mid ahay mucaarid iyo muxaafid iyo ummad oo dhan waan u dhaxeeyaa siyaasadda bolisiga dawladda uga yaala qadiyada reerkan muxuu yahay laba nadiiftiimaya mid waxa weeyaan markuu talada dalka qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi booliisi wasiirada kalfadhigii afraad waxa lagu soo qaaday doodan kootada xeerkeedii jiro xeerkeediina imika baarlamaanka hor yaalo golaha wasiiraduna ansixiyeen xadarna aanu saxeeyaa sida loo qaybsanayaa iyo sida ku imanayaan xeerka cadeeyay doonda xeerka ka degdegin talabaad 23 bishii hore February golaha wasiiradu mar labaad waxay soo saareen go'aan ay ku amrayaan hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda in si shuruud la'aan looga shaqaaleysiiyo dadka bulshooyinku caqabadaha waxay ka baxaan xilliga ay caafimaadkoodu kor u kaco waxbarashadoodu kor u kacdo dhaqaalada kor u kaco arrinta cajiibka la wadaagaya waxa weeye barkhad 20 sano ka hor maynaan aqoon cumar waxaan ka hadlay maynaan aqoon akhyaar fara badan oo kala madasha ta fadhido oo qiimo laho beeshan kamid ah maynaan aqoon waxayna baray waa aqoontooda kartidooda iyo dadaalka ay ku jiraan waxaan markaa aaminsanahay haddii bulshadan dhaqaalaheedu kobco aqoonteedu kor u kacdo xirfadaha ay lahaayeen la barmoodgarayo la kobciyo wax la dabo la siiyo skills ka baxnaayeen waxaan aaminsanahay iyaga ifaya bulshadana ka ifaya anigu asxaabta ugu badan baan ku leeyahay
oo barkad ugu horeeyo oo qaryaqaan liibaan ka mid yahay oo yuusuf ka mid yahay oo cumar ka mid yahay oo hablo farabadan hal dowr ka mid yihiin wasaaraddeedu waxaanu hadda gacanta ku haynaa oo dagaal ugu jirnaa sidii kooto baarlamaanka looga heli lahaa waxaanu golaha wakiilada ka abuurnay caucus guddi ka shaqaysa kootada tan iyo kootada haweenka si loo hirgelin lahaa meel fiican bay maraysaa golihii wasiiradu iyo madaxweynuhu waa soo ansixiyeen waxay keeneen golaha wakiilada xisbigii kulmiye iyo xildhibaanadii ka tirsanaa iyo xildhibaanada golaha oo dhan waxaanu ku jirnaa sidii xeerkaa loo meermarin lahaa kootadii golaha wasiiradu keenay cabdulqaadir cabdulaahi nuur warbaahinta qaranka somalilan hargeysa wararka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah xogayaha gobolka Murujeex Maxamed Deeq Muuse ayaa ka jawaabay hadal dhawaan ka soo yeedhay afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani Barqad Jaamac Batuun hadalkaasi oo afayeenku ku sheegay in haddii Somaliland dagaal gasho aan beelweynta Gaboy dagaalami doonin hadalkaasi ayaa xogayuu ku sifeeyay in hadalkaasi aan ku haboonayn beesha iyo waliba bulshooyinka Somaliland waxa uu sheegay in daf ay ku ahayd qaranimada iyo waliba dowladnimada Somaliland waxa uu intaas ku daray in beelweynta Gaboy ay ka mid tahay beelaha Somaliland isla markaana ay kala siman yihiin adeegyada horumarinta beelaha kale ee Somaliland hadalka ka soo yeeray waxaan u arkaa hadal aad iyo aad xaqiiqada uga fog waa hadal qadafa waa hadal qarannimada jamhuuriyadda Somaliland ku ahayn munaasab ku ahayn waa hadal aan ku hadli karin nin muwaadin oo u dhashay qaranka jamhuuriyadda Somaliland ama garanaya waajibaadka qarankani uu leeyahay isla markaana garanaya qarankan waajibaadkii loo soo maray qaranka ayaa dhala dawladnimada qaranku waxa weeyaan waxa uu horeeya calanka waxa ku xiga dastuurka waxa ku xiga xuduudaha waxa ku xiga bad iyo bariba waxa ku xiga lacagta kulka dhammaan qaranka jamhuuriyadda Somaliland waa qaran buuxiyay dawladnimadiisii waxaan u sheegayaa wuxuu ku soo qaatay haddii maanta qaranka jamhuuriyadda Somaliland dagaal u galo ama isla markaa la soo weeraro inaanay difaaci doonin beelaha Gaboy wax ugu yeeray waxaan horta marka koowaad si clear u cadeynaya waxa la yiraahdo Gaboy waa dalad weeye umbrella Soomaalidu waxay ku maamahdaa afxumo alla way ka kaxaysaa nabadna waxba kaaga ma tarto beelahan waa kala hayb waa kala isir isku abi isir midna maaha waxa isku keenay waa dhaqanka ayuunba israaciyay maadaama dhaqanku israaciyay beelna beesha kale xuquuqdeeda kama hadli karto beel walbana iyada ayaa og xuquuqdeeda Soomaalidu waxay ku maamahdaa nin walba meeshii bugtaa isagay balbashaa marka waxaan u sheegayaa annaga xuquuqda beelaha muslimiinta hadaan eego xuquuqdeedu aad iyo aad bay wanaagsan tahay xuquuqda kale ee naga dhiman waxaan ku raadsanaynaa si salmiya oo aan qarannimada waxba yeelaynayn xuquuqda uu leeyahay way iga maqantay waa inuu ku raadiyaa si salmiya saddexda ciidan qaran ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland jideynayo iyo ciidamada kale haday noqoto migrationka iyo coast guardka iyo ciidanka militariga ciidanka asluubta iyo ciidanka ay jeesha intaba way ku jiraan waana ka badan yihiin tirada uu sheegay halka darajada hadaan noqdo oo darajadu ay tahay milgaha iyo sharafta iyo hibada qaranka ee ciidanka lagu kala garanayo waxay leeyihiin corneyl bay leeyihiin gaashaan leeyihiin kabtan bay leeyihiin laba xidig leeyihiin xidig leeyihiin saddex xadhig leeyihiin laba xadhig leeyihiin xadhig leeyihiin cid haday ka mid noqonayaan cid u diidaysa ma jirto Abdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi telefishin qaranka Somaliland Hargeysa imikii haatanna waxaad u diyaar garowdaan faallada warka oo ku saabsan dhinaca warbaahinta warbaahinta suxufiyiinta iyo ururada saxaafaddu ha joojiyaan beenta ay faafinayaan waa amuurtay ku saabsan tahay faalladeena warku waxaana wax ka qoray Cabdilaahi Aadan Cumar wayab warbaahintu waa ta xidhiidhisa bulshada koonkan ku nool kana xaqabtirta xogo dhacdooyinka ka kala dhaca dhammaan dunida daafaheeda war wacyigelin iyo wacaalba gaadhsiisana bulshada isla markaana kobcisa aqoonta iyo garaadka bulshada sidaa awgeed waxaa laga maarmaan ah in qofka ka howlgelaya xirfadaasi uu ahaado mid dhan walba ka bisil oo ka dhisan xag waxbarasho oo ilaa heer jaamacadeeda ama wax u dhigma iyo inuu ahaado oo qof ka hufan dhaqamada xunxun oo dhan sida beenta isku dirka eexda cunsuriyadda
qabyaaladda iyo inuu si daacad ah iyo weliba dhexdhexaadnimo ah ugu adeego dadkiisa. Qofka ka shaqeeya mihnadan waa inuu ahaado mid ogsoon oo si fiican u yaqaana inay hawshani tahay ammaano uu hayo bulshada oo aanu ka yeeli karin sida uu doono. Sidaasi daraaddeedna looga baahan yahay inuu u guto waajibaadka saaran sida ugu habboon ee ay ku farayso xirfadani, oo waajibaadka koowaad ee laga doonayaana uu yahay ilaalinta anshaxa saxaafadda. suxufiyiinta iyo warbaahinta dunida oo dhammi waxay u adeegaan oo difaacaan danaha bulshadooda iyo waddankooda, umana suurtogelayso inuu ka hor yimaado yoolka dadkiisa iyo dalkiisa, waayo isaga ayaa ka mid ah oo la dan ah. dalalka dunida oo dhammina waxay isku jiidanayaan ee laysku xulafaysanayaa islamarkaana laysku dilayaa waa dano. sidaa awgeed waxaa ku waajib ah suxufiya mulkiilo warbaahineedba inuu dhinaciisa ka dhowro oo ka difaaco wixii hadimooyin iyo hantaaqooyin kaleba dadkiisa iyo dalkiisa gaadhsiinaya. dalkeenna waxaa ka dhisan oo ka hana qaaday warbaahin madax bannaan oo qofkan ka masuugayn ama xin iyo xasad xambaarsanaynba ka marakacayo in jamhuuriyadda Somaliland warbaahinteedu tahay ta ugu dimuqraadiyadsan ee ugu xorriyatal qowlka fiican dalalka ku yaala qaaradda Afrika iyo weliba meelo kale oo ka mid ah dunida oo xataa waxyaabaha ay baahiyaan ama se ay qoraanba aanay u suuroobayn inay baahiyaan warbaahinta reer galbeedka iyo weliba ta Maraykankuba. iyadoo ay sidaa tahay ayaa haddana qaar inaga mid ahi ay maalin kasta u gudbiyaan warbixino dhinac qura ka raran xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland oo ku tilmaamaan mid ku tumatay xorriyatal qowlka, waxaana ugu dambeeyey dalka boqortooyada Ingiriiska oo ku eedeeyay xukuumaddeena inay caburiso warbaahinta iyo saxaafadda ka howlgala dalka. sida xaqiiqada ah ee aynu ognahayna warbaahinta iyo suxufiyiinta ku sugan Somaliland iyaga ah kuwa dulmiga iyo xadgudubka joogtada ku haya shacbiga dalka iyo hadba xukuumadda ka jirta. urur la yiraahdo CPJ oo ah xarun sheegata inay tahay mid u taagan ilaalinta suxufiyiinta ayaa dhawaan warbixin ay ka soo saareen wariye xukun ku dhacay oo u dhashay dalkani Somaliland ku sheegtay in wariyahaasi la xukumay uu ahaa mid aan dambi lahayn. sidaa awgeedna waxay warbixintooda raaciyeen dalab ah in xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland si degdeg ah ugu soo celisay xorriyadiisii. warbixintan CPJ waxay tixraacaysay xog ay ka heleen ururada saxaafadda Somaliland ee ka jira gudaha dalka, kuwaas oo xogaha ay u gudbiyeen ku sheegay inaan wax eedayn ah oo la hor keenay maxkamadda aanay jirin, waxaanay daba socdaan ururkan CPJ. waa warbixintaasi khaldan ee ay u gudbiyeen xubno mas'uuliyiin ah oo ka tirsan ururada saxaafadda Somaliland. horta marka ugu horeysa waxa ururka CPJ uu ku xadgudbay oo uu meel kaga dhacay dhexdhexaadnimadii, waayo dhinacyada kale ee xukuumadda iyo garsoorka iyo weliba kuwa kale ee madax bannaan midkoodna waxba kama ay weydiin arrinta wariyaha la xukumay. talabaad waxa ay iska indhatireen sharciga dalka iyo nidaamka ay ku dhisan yihiin nidaamyada dowladaha dimuqraadiga ah, waayo xukun maxkamadeed oo dhacay ayay u haystaan xukuumadda kagana dalbanayaan inay sii dayso wariyahaasi. mana odhan karno aqoon darro ayaa ka haysa kala madax bannaanida saddexda tiir ee kala ah sharci dejinta, fulinta iyo ka garsoorka. arrinta kale ee foolxumada ah waxa ay tahay in ururada saxaafadda ee jamhuuriyadda Somaliland ay maalin kasta oo la xidho ama la xukumo wariye ay markaaba toos ugu diraan hay'adaha caalamiga ah ee ururada saxaafadda iyo kuwa kaleba warbixino khaldan, kuwaas oo ay markasta eedeeda dusha ka saaraan xukuumadda markasta iyagoona eeganaya keliya danaha kharash ee kooban ee ay ku qabaan hay'adahaasi oo sidaan filayana ay ka badan tahay ta ugu deeqo qarankan jamhuuriyadda Somaliland. waxaan u soo jeedinaynaa madaxda ururada saxaafadda ee Somaliland ee ku hawlan faafinta xogaha khaldan ee ay sida degdeg ah u gaarsiinayaan ururada kale ee saxaafadda iyo kuwa xuquuqul insaanka isla markaana joojiyaan shaambadaha madow ee ay la daba socdaan dalkooda iyo qarankooda kuna dhaqmaan wixii runa oo xataa hadday tirsanayaan in wariyaha lagu gafay ay maraan dariiqyada kale ee u bannaan oo ay ka mid tahay inay u qaadaan ambiil maxkamadda kale ee ka saraysata xukunka riday, balse ay iska dhaafaan
iska dhiska hay-adaha kale ee shisheeye. waa tahay daawadayaal warkii iyo faalladiiba intaasi ayaynu weegiin intaynu dib isugu soo noqon doono saacadaha soo socda haddii allaha awoodda leh ogolaado. inta ka horeysa waa cabdiraxmaan muuse cumar iyo intii ku wehelinaysa ka qayb qaadashada wararka oo idinku dhaafay sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.